nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu u diray Abaa Cubaydah bin al-Jarraax Bahrayn si uu uga soo qaado maal jizye ahaa oo laga qaadi jiray gaaladii halka joogtay. Abu Cubayda waxa uu ka soo noqday Bahrayn isagoo maalkii wada wuxuuna u soo hoyday Madiina kadibna ansaartii Madiina ku nooleed ayaa waxay maqleen imaanshaha uu yimi Abaa Cubayda. subaxii ayay masaajidka soo buuxiyeen kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa salaad tujiyay. salaad markay tujiyay oo nabigu salaam naqsaday oo uu soo jeestay ayaa ay isu muujiyeen oo nabigu wuxuu arkay in masaajidku aad u camuran yahay si ka duwan sidii hore. kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam tuu dhow la cadeeyay ayaa waxa uu yiri waxaan u maleynayaa inaad maqasheen Abu Cubayda ayaa maal wuxuu ka keenay Bahrayn. markaas waxay dhaheen ha rasuulka Ilaahay sidaas aanu maqalay. markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri idiilaysta oo bishaaraysta wax idin farax galiya maxaa yeelay fakhri idin ka biqi maayo laakiin waxaan idin ka baqayaa in adduunyada la idin balbalaariyo sidii kuwii idin ka horeeyay loogu balbalaariyay kadibna aad ku baratantaan sidii ay ugu baratameen kadibna ay idin halaagto sidii ay u halaagtay. xadiiskan isaga waxaan ka qaadanaynaa kow in adduunyadu aanay macno lahayn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka risqiisa uu ballan qaaday oo gaajo iyo fakhri aan loo dhimanayn. qodobka labaad waxa weeyaan saxaabadu siday u ahaayeen kuwa runta sheega oo aan mujaamalo aqoon oo markii nabigu ku yiri masaajidka waxaad u soo buuxiseen oo waxaad maqasheen imaanshaha Abu Cubayda waxay dhaheen ha rasuulka Ilaahayow. aad baa u mahadsantihiin muuqaalkan like saar si asxaabadu uga faa'iideystaan siina share gareeya si walaalo fara badan uu gaaro. bishaaro waxa loogu bishaareynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub. markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta Islaamka sida higaada, Qur'aanka oo hab tajwiid loo barayo, aqoonta barashada farteena Soomaaliga ee dhaqanka iyo in waliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha aqoonta ku tacalluqa. haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +25290 5444 550. aad baa u mahadsantahay.